hagaag habeen wanaagsan soo dhawaada akhyaaray waxaa jira xanuun loo yaqaano peptic ulcer disease Soomaalidana ay u taqaano gas bulshada caalamka oo idil marka la eegana aad ugu badan gaar ahaan Soomaalidana ay aad cabashadiisa ugu badan tahay waxaa tiir looga dhigaa sababaha ku sababa dadka inuu yahay khalkhal xagga cunnada ka jira darteed waxaase jira waxa loo yaqaano bacteria caloolaad H pylori oo kamid ah waxyaalaha ugu badan ee sababa bacteriadan oo ah bacteria aad u dhib badan daweynteeduna ay aad u adag tahay soo noqoshadeysana ay qofka aad ugu badan tahay haddii aan la daweyninna qofka dhibaato ku sababi karta kale sidoo kalena qofka ku soo noqon karta waxaa habboon in la cirib tiro oo dawo loogu talagalay ayaa jirta in la isticmaalo ay muhiim tahay